dhaxal sugaha dalka Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed ayaa abaalmarinta ugu sareysa ee dalkaasi waxa uu gudoonsiyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Eritrea Asias Afwerki oo markaasi si wadajir ah loogu casuumay magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka. qadra xasan nuur ayaa inoo faahfaahinaysa. labada hogaamiye la tirayay Itoobiya ayaa waxay booqasho ku joogaan dalalka Imaaraadka waxayna toddobaadyadii ugu dambeeyay ay gaareen heshiis taariikhi ah oo dib loogu soo celinayo xiriirka labada dal oo muddo 20 sano ah xumaa kadib dagaalo dhexmaray. Imaaraadka Carabta ayaa door muuqda ku leh heshiiska labada dal ee dariska ah taasi oo looga soo afjarayo dagaaladii iyo colaadihii labada dal ee Eritrea iyo Itoobiya u dhaxeeyay. dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed ayaa sheegay in talaabadan ay tahay mid taariikhi ah in labada hogaamiyaal ee labada dal ee dariska ah inay ku soo afjaraan isku dhacyadii u dhaxeeyay isla markaana uu furmo qaab cusub oo wada shaqeyn iyo wada jir ah. waxa uu sheegay in Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ay taageerayaal muhiim ah u yihiin dadaalo kasta oo nabadda iyo xasiloonida loogu gaarayo gobolka iyo danaha dadka gobolka. Saameynta Imaaraadka Carabta ee gobolka Geeska Afrika ayaa isa soo tarayo sanadihii u dambeeyay waxaana loolanka ugu weyn ee dalalka Khaliijka iyo Turkiga uu yahay dalalka badda cas oo ay Soomaaliya ku jirto.